ومر kale ay barnaamijkeeni aadka u xiisaha badnaa ee taariikhda ciyaaryahanka. barnaamijkan maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa taariikh nololeedka ciyaaryahan kamid ah ciyaaryahanada ay ku duushay kooxda kubadda cagta FC Halgan. qofkan ka hadlayno qof kale maaha waa joogdheeraha kubadda cagta oo ciyaara qaabka Cristiano Ronaldo. ciyaaryahanka lambarka 7 uu wata kooxda kubadda cagta FC Halgan Cabdiraxmaan Maxamed Yuusuf waa asxaabtiisa iyo dadka inta badan ugu wacan maanow. ku soo dhawaada taariikh nololeedka ciyaaryahankan. I got broads in Atlanta, she's the lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. ugu horeyntiiba xidigan waxaan wax ka weydiiyay goorta iyo waqtiga uu ku soo biiray naadigan faca weyn ee Halgan FC. jawaabtiisana sida tan ay ahayd ku guuleysiga koob waaweyn iyo kuwa yaryarba waxay riyo u tahay ciyaaryahan walba oo ciyaara kubadda cagta. Cabdiraxmaan ayaan wax ka weydiiyay koobka uu kula guuleystay kooxdan faca weyn ee Halgan FC waxaanu ugu jawaabay oo jira kan badan la qaaday sidii championka camal iyo koob kale oo xariisan wajira. saaxiibtinimada maaha wax kaliya ee ka jira banaanka waxay sidoo kale ka jirtaa kubadda cagta. ciyaaryahan Cabdiraxmaan ayaan wax ka weydiiyay ciyaaryahanada uu aad ku jecel yahay inuu la ciyaaro kubadda cagta inkastoo uusan kala jeclaan asxaabtiisa waxa uu ugu jawaabay sida tan ciyaaryahan Cabdiraxmaan ayaan mar kale wax ka weydiiyay farqiga u dhaxeeya kooxdii hore ee 2017 uu ka soo hayaamay iyo kooxdan uu hadda la joogo ee Halgan FC. ciyaaryahankan ayaan isagoo u riyaaqsan kooxdan uu hadda la joogo ugu jawaabay sida tan farqiga u dhaxeeya waarka waxa kaliya koob jida ma sha Allah si fiican. qisa walba oo qoronta ama sheeko walba la sheego waxay leedahay qof sheekadaasi ka dambeeya. Maladiftax Guardiola oo macalinka ciyaaryahan Manow iyo sidoo kale macalinka kooxda kubadda cagta FC Halgan ayaa ka mid ah dadka inta badan ciyaaryahankani soo gacan qabtay. macalinka ayaan ka wareysanay qaab ciyaareedka ciyaaryahankani waxa uu noogu jawaabay ما شاء الله هو يرمانو يران فعل بدهان وسمعانو كوب كانوا ودنا هو يرتوي كانوا سويلين وكدياي marka xarabna inaad yar fiican ku dhigto hada koobkan soo jiito هو يران keenay yartu badan way dadaaleen laakiin yaranka teamku uu muhiimsanaa marka shaqeeyay dowlasha dhalay iska dareemi kartaa xataa wariyo هو ina warar badan ka sidaan maro la tacaamulida dadka iyo habdhaqanka wanaagsan ee ciyaartooyda kala kula dhaqantid waa wax aad iyo aad loogu baahan yahay marka tahay ciyaaryahan nooca Manow oo kala ah. Cabdi ayaan wax ka weydiinay qaabka ciyaaryahankan uu la macaamil asxaabtiisa kale ee kooxda la joogta waxaanu ku jawaabay يرمانو هو يرتوي fiican intada xagga intada iyo akhlaaqda ciyaartooyda ayay yaramaro baa soo xadiraayo dadaal badan bixiyaayo waa dareemi kartaa xataa talentiga iyo xirfadda uu leeyahay ciyaaryahan ma aha wax dhuma haddii uu la jiro macallin aad iyo aad u xirfad badan. ciyaaryahan Manow waxaan u rajeynaynaa mustaqbal ifaya ilaa heer xul qaran uu ciyaaro insha Allah. waxaan halkaas ku soo afmeeraynaa barnaamijkii maanta aan kaga hadlaynay taariikh nololeedka ciyaaryahan Manow. insha Allah waxaan noo balanaa xalqada xigta ee ciyaaryahan kale.